حزب معنا جبهد إلى جبهد عصب على الواقع حزب مضيه كرنا وجبهد صوتها مقعودة وكل شيء جاية جاء وحكي كان ليس جبهد ساعدنا وصومالي بيدنا وصومالي باللقيستوى وجبهد الصومالي باللقيستوى مركب الصومال الله فسره قمر سياسي عبين ما قمر عادي هاد قمر سياسي أي قواشي مصحى بدي شيء أي هرت عبين يا عبي كل واحد ماشي سكوته ومدحونا أو رئيس وزراء وكذا كل أنت ماشي سكوتك قمر بيعبين قمر سياسيات وحليرها القمر السياسيات معناها waxaan meelay waxba ka jirin ay wax ka raadiyeen marka qof caafimaad qaba iyo maskax caafimaad qabta iyo qof fiyo iyo qof maskaxiisa tan tahay waxaad sameeyaan xalib ma sameeyaan ma sameeyn doon madaxweynaha waxaan iri aan isleeyahay waxa la hasha qaadiga aragtaan qarka ma aragta kursigu arkaa wuxuu sii kursiga biya ka soo galay xisbi sameeysa ka doro dib dhila ka dhacday maanta saacada aan tagan ku sameey madaxweynaha waa sharcigan ka dhiga aniga ma dhigan halkii sano u dhinaata wax soo saar kare waxaan isleeyahay saacadaas laga bilaabo heshiisyo dambe ma gali karo ku soo madaxweyne waa doorashadii in la qabta ka shaqeeya waxyaabaha waalida qof socdo dharkiisa wata laakiin waalan wuxuu sameyn lahaa ee waqti waxyaabahaas Jubbaland maamul ay leedahay Soomaali Jubbaland waxa degan Soomaaliya dhan degan waxa kaaga diila golaha wasiirada hadda 17 wasiir kulay ama wasiir ku xigeen ha noqdo ama wasiir dawladda ha noqdo أما محي هذا وزير بوحة نقضة أو جبلان كسوقري. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا وناكسن داود يالي دلكين بملك استوى جوكتان كسو دوادا ورئيس جار أو أنو ليا لنا نوح اللي بان عبد النور علي آذن أو أحمد كترسن برلمان كقولها شعب كجمهورية دا فدرال كصومالية اللي بان كوحن وحكوي دين دونا حالة دا سياسة دلك أريمات دور أو قيب أي كتهاي maamulka Jubbaland oo xildhibaanku uu ka soo jeedo xildhibaanna markuu ugu horeysa soo dhow waa maasantahay waa soo dhawahay soo faysana aad oo maasantahay xildhibaan Cabdinuur xalay magaalada Muqdisho waxa looga dhawaaqay xisbi ay ku mideysan yihiin madaxda sare ee qaranka madaxda dawlad goboleedyada iyo dabcan xubno badan oo siyaasiyiin ah ugu horeyn xisbigaasi sida u aragtaa بسم الله الرحمن الرحيم. حزب معنا جبهد إلى جبهد عصب على الواقع حزب مضيه كرنا وجبهد صوتها مقعودة وكل شيء جاية جاء وحكي كان ليس جبهد ساعدنا وصومالي بيدنا وصومالي باللقيستوى وجبهد الصومالي باللقيستوى مركب الصومال الله فسره مركب حزب هذين ولمن صومالي باللقيست ربان قرنا هدي ولا مرايا بعيد لو كل شيء لا تكيد ولا مرايا أي ربان صومالي إنه باللقيستان مركب حزب مضيه كرنا وحلا يابلا أي يعني رنتاس runtiina waxaan isleeyahay qeyr sharci intaas leeg nin madaxweyne laba jeer soo maray inta loo keena laga dhaadhici oo qaadana goob la imaana isma leheen marka Soomaalidu waxay tiraahdaa hore loo yiro nin asoo dhar wata meesha ku xishooda nin dhaqlaan ku mara marka waxaan u arkaa xishood darro siyaasadeed damiinimo siyaasadeed maxay ahayd kufsi maxay ahayd siyaasadda lagu sameeyay xadgudub lagu sameeyay maxay ahayd dawladnimadii qaranka Soomaaliyeed أنت بواحد كستو وحن واحد كسر ما واحد على السماء مركب واحد إسليه واحد وقوم صوب ما أنت وكفر حياة واحد قرنا والضمير لما هي عليه أي كل واقع ما كسر حلبان عبد النور علي آذن حسبات كتير سنة هاي مدن برلمان كم إذا الواتا طبعا حسب قال له واقع سياسيين أتكلم أركت دوناتان لكن سياسيين هنك كوجو جرو كلا ولهبا طبعا مركب maxaad u dhaliilaysaa ma waxaad rabtaa xisbigaaga un kaliya inuu soo haro soo lama rabo xisbiye ka aragti duwan oo doorashada kuga la tartama runtii aniga horta xisbiyada kale ama Soomaalida kale ama kuwa ka aragti duwan waxay u sameeyeen wax aad u qiimo badan oo runtii oo ayaga lid ka dhigaya ummadda Soomaaliyeedna ay aragti u jeeda inay dad maanta Soomaaliya wax beel geen kara inayna ahayn ma waxaan saxan ama waa saxantaan dhigi karnaa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed Zaylac raas kaambuur inta u dhaxaysa sidoo sheeganay madaxweynaha u ahaa xalay 22 say sheegan ma dhameena ayaa meel inta ku xariistay intaana aniga aan matala inuu dhaho oo soo fariisto oo caalamka u yeero oo maxay ahayd meel walba idaacadii loo yeero maxay ahayd dadka ay arkaan ummadda Soomaaliyeed macnaha ay dhahaan wax maxaa ay la yaabiin inuu sameeynayo horta isma lahayn laakiin waxa waaye qofku waxay yiraahdaan Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka meel ka cadahay meel ka madow waliiri Soomaalinimada ka madow boobka iyo dhaca iyo xadgudubka iyo cajujuubka iyo maxay ahayd waxyaabaha aan suurtagal ka hel
maxay aheeday iyo maxay aheeday hungurweynka aan horta ka tambadiyay aniga waxaan isleeyahay dadka maashaas isku tagay waxa ka sii daran oo la yaab leh national Soomaaliya salaanta national Soomaaliya xisbi xal loo yeeranayo waa aqaan aniga maxay aheeday taliyaha maxay aheeday banda muusikada nin qiimo badan waay nin aqoon u leh waay nin sharciyada yaqaan waay nin ugu yaraan 50 sano 60 sano booliis ku dhex jiray waay ala qasbay laakiin kuma u siyeeriyeen waay national Soomaaliya waxay kala leedahay madaxweynaha golaha wasiirada mid gooni u leeyahay madaxweynaha toodi gooni waay wasiirada toodi gooni waay meelo madaxweynaha qaladkaas u jira hadana meelo madaxweynaha joogo oo loogu yeeriyo hadana wasiir loo siyeerinaya marka meeshan Soomaaliya caloosha laga rarahaya qof kasto Soomaaliya oo damiir leh ama dalkan Soomaaliya dan kale ama Soomaaliya nima ku jirto waxaan dhihi lahaa inqiraab xadgudub cad ah oo meel u raad leh ana lahayn ay xal horta isku dayeen laakiin waxa nasiib darro ah Soomaaliya waxay tiraahdaa ninkii ciid kugu seeray calooshiisu ku tusay waxba kuma dhiman ummadda Soomaaliyeed waxay tuseen damiinimada siyaasadeed fikrad xumada maxay aheeday maangaabnimada iyo maxay aheeday maamul xumada ayaga ay ku bahaysan yihiin oo awalba isku raadsadeen waxa maqla jiray balaayada ma balanta ismana waysa waxaan la yaabanahay dadka soo jalway soo xulay marka waxaan isleeyahay waxaasi wax suuragalaya ma aha ma dhacaysa mana dhici doonto ummadda Soomaaliyeedna jaana saysiyan cid kasto maanta mucaarad ah ama mucaarad ah iska joogto aamusleed maanta waxay haystaa jaalis qiimo badan ayaga la sii jaaliskaas xubnaha xisbigan cusub cadaaladda iyo wadajirka kamida waxaa kamida gudoomiye ku-xigeenka koobaad Sacdiyo oo ka heshay xubin gudoomiye ku-xigeen sida uu aragtaa xildhibaan runtii aniga Sacdiyo horta ma joogto oo way maqantaa sidaan maqlaay aan lii sheegay laakiin hadday qaadato ayada automatic waxay iska ka tarasushi gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka oo waxay qaadatay gudoomiye waxa loo magacaabo xisbiga looga dhex magacaabo waayo maanta alisay noo jir gudoominaysa maxaa fadhi mucaaradan leenahay baarlamaanka leeyahay haddii ay xisbi ka tirsan tahay baarlamaanka dhex xisbigeeda miya marka waxaan u arkaa in ayadana ka tarasushi midda madaxweynaha marka uu soo noqdo madaxweynaha waxaan aan isleeyahay waxaa leeyahay hasha qaadiga aragta qarka ma aragta kursigu arkaa wuxuu yiri kursiga biya ka soo galay xisbi sameeysa ka doro dib dhila ka dhacday maanta saacada aan tagan ku samee madaxweyne waa sharcigan ka dhigaan kama dhigan halkii sano u dhinata oo wax soo saar kare waxaan isleeyahay saacadaas laga bilaabo heshiisiya dambana ma gali karo ku samee madaxweyne waa doorashada in la qabta ka shaqeeya haasaan isleeyahay sababtoo ah anagu dastuuran leenahay oo lagu heshiiyay heer hoosaado baarlamaanka leeyahay dastuurkeennii waxa oo qalabsan qodobka 65 fiiri madaxweynaha dalka waay qof baarlamaanka ka tir hadda asoo markuu madaxweyne yahay hadduu hadda xisbi noqdo madaxweynimadu ka tanasulaya haddii maxay ahayd madaxweyne xisbi ahaan markuu madaxweyne noqdo wuxuu ka tanasulaya maxay ahayd xisbigu ka tanasulaya ka tagaya waa ka soo qaad meel dheer ka raadinayba Soomaaliland maanta oo dadka Soomaaliya markii la maamulku fiicna cid markuu madaxweyne noqdo xisbigu waa wareeji kii ka horreeyay soo ahay kii ka soo horreeyay soo ahaa marka waxa xalay meeshaas ka dhacay ma dhihi karna damiin siyaasadeed maangab siyaasadeed iyo maxay ahayd xadgudub ummadda Soomaaliyeed jirif maxay ahayd Soomaali dad qiimo badan waa dad aqoon leh waay isla xadgudub ka dhacay wax Soomaali qaadan karta ma marka qof kasta waxaan leeyahay ku darsanaya qof kasta Soomaaliya oo dalka Soomaaliya dan kale ama wax garanaya ama qaangaara arrintaas loo istaaga dalka laga badbaadiyo dadka raba in dalkeena waxaan suuragal ahayn in ku maamulaan marka arrintaas arrin yaab leeyahay shirkii wada tashiga qaranka ee dhawaan Muqdisho lagu soo gabagabay xildhibaane qodobo kamida waxaa ku jiray in dawladdu hadda ay maamul cusub oo sharci ah sida lagu sheegay warmurtiyeedka ay u dhisayso Jubbaland tallaabooyinkii dawladdu waa muuqdaan in odayaal dhaqameed lagu xirxiray Gado warar hoos waxay sheegayaan in ciidamo laga dejinayo maadaama xayiraadiina Gado qayb kamid ah dowladnimada laga qaaday maamul cusub ma isleedahay waa la joogaa waqtiga loo dhisi lahaa inta maamulkii meesha ka jiray laga talaabsado ama laga tago bismillaahir rahmaanir rahiim waxyaabaha waalida qof socdo dharkiisa wata laakiin waalan wuxuu sameyn lahaa iyo waqti waxyaabahaas Jubbaland maamul ay leedahay Soomaali Jubbaland waxa degan Soomaaliya dhan degan waxa kaaga diila golaha wasiirada hadda 17 wasiir ku leeyahay wasiir ku ha noqdo ama wasiir dawladda ha noqdo ama maxay ahayd wasiir buuxa noqdo oo Jubbaland ka soo galay waxa sababina waxa waaye
soomaali dhanaa degan marka jubbaland marka maamul waa u dhisan yahay waana la wada og yahay maamulka ugu fiican maanta dowlad goboleedyada ayaa u dhisan waayo ummadda soomaali meel keliya maanta ummadda soomaaliyeed hadduu xoolo jira yahay hadduu beeraley yahay hadduu magaalada joogo haddii maxaa dibadda jira la weydiiyey madaxweynaha hadda idin maamulo ka warrama haddii la dhahaa oo ay wada taageerayaan 97% jubbaland ka jirta marka hadda ka hore waxaa dhacday soo feesarow 7 nin oo saaxiibo ah oo dadka balwadda ah ayaa waxay soo qaateen qabri meel luuqo sida hadda meesha fadlan camal laba gedaar dhaxdooda oo jardiin ay la fariisteen qabrigiisa ay u cabayaan markuu waaga soo dhow yahay ayay waxay baa dhamaaday waxay dhan baxda guriyana aadna markay dhaqaaqeen mid kamid ah wuxuu yiri war kaaliya luuqan xalay ma uu yara marka iimaanayni labadan darbi anaga kala durjinay reerihii masaakiinta darbigooda meesha ugu soo celinna hal darbi aan la qabto waa la soo jiiday waa dhaafeen meesha celi kii kala hadan la aad inta lagu jiro waaga ku bari ciyaalka ku soo kacay tooriye iyo dhagax iyo qayl iyo booliiska ku wada meesha lagu xirxay tii horta lamadiyo dadka waxay ku jiraan umbriyaaka qof maskax umbriyaaka waa maskax caafimaad qabta ma waxay ku hadlayaan marka waxaan dhihi lahaa inta umbriyaaknimada ka noqotaan iska daysaan dawladii madaxdii dawladda dad cabsan oo kale u shaqeynaya qaab dhaqankii way kama bedelna way horan ku hasha laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ognahay inta badan la sheegay dad balwad inaysan ahayn xildhibaan macnaha maskaxdii kuwaas ay kullu ku jirtay balwad siyaasadeed ku jirtay qamri siyaasadeed cabeen ما قمريد عادي هاد قمري سياسي أيها واشي مصحى هذا بدشي أيه هرت عبيل يا عبي كل واحد ماشي سكوته ومدحونا هو رئيس الوزراء وكذا كل أنت ماشي سكوتك قمري بيعبين قمري سياسيات وحليرها القمري السياسيات معناه وحان مالي كحبة كجرن أي واحد كراديا مركب قف عافمات قبه يمسكح عافمات قبته يقف فيو يقف مسكح يستمتع واحد سمينا حلب مسمينا مرة سمين دول في رئيس الوزراء دول كواي مدحونا دول كواي maxay ahayd guriga wasiirada xalay waxay yiraahdeen xisbi anaga aan leenahay ku talo xamar kaliya 4 milyan ku nooshahay yaa madaxweyne u ah 2700 aan lahayd dhehel siday sheegteen qori 500 kan badnaa anaga saan arkay hadii waxay dhaheen xisbigaas gudoomiye waxaan loo amuun sharci laka mid kale waxa ka sii daran kuwaas oo ayagana ka sii daran nin madaxweyne dowlad goboleed ah dad 4 milyan 3 milyan gaaray ama ka badan madaxweyne goboleed u ah inay saaki ku fikiraan waxyaalaha meesha laga galaan garla maskaxda fiyo inay jiraan ku sheegaa inay yiraahdaan xasan galaashiisan ku feelaynaay ilaahu xasan wax si soo anaga wax noo si inay ku fikiraan wax la yaab leh Soomaha maskax caafimaad qabta meesha ma taala marka waxaan ku dhihi lahaa xadada ayagu may doorasho galaan oo is doortaan oo wax raadsadaan shacabka wax laga rabo sida Axmed Madoobe iyo Siciidan hadda waxa lagu gulgulay waxa waaye moogtahay dhibaato ay leedahay sharci darro inta lagu geliyo markii aad godka ku dhacdan lagu yiraahdo ana sharci darrad ku jirta hadii kale wallahi dawarkan ka qaada meesha la yiraahdo waxa waqtiga laga dhameeyay أحمد وحاول من ضل يضد يقدم بيان آمسن حلواني يصير كم دانك جب لك سوق عليه حلواني دولة فلا جب لك سوق عليه هرينا وزير على وجهها دينا كاسن كل شيء وحنا أنا حد كل حلا وحقيقة أن كل شيء عد كستر أنا كقري عديار وجهه إن جب لك ما أنت مدحونها هو ومدة دكان جب لك إرهالك وقتها مدة جدات كل شيء مريحان وادت مدحونها وبس سوالف لا تصل صوب كبير وادد مدحوينه marka la noqdo rasuulaar mar labaad noqday ayadoo la burburay Soomaali inta dagaasho waxa muslim Ibrahim oo dagaal waa nimankii ka soo galgashay siyaasadoodii Soomaali inta ka gadeen rasuulaar noqday waa nimankii ka sii galgashay oo madaxweyne noqday maanta fartaaga barraxaan matala gada tagay marxaan oo qalanta ilhaanay ku tahay difay ku tahay xadgudub ay ku tahay jariif bay ku tahay runtii inuu fartaag barraxaan matala laakiin waa wasiirkii amniga أنا سنتر ما يا فيري وسيرك قبلك وسير قبل صباح ما قونتي ساعة وسيرك حسن دهرت هي وسيرك حسن واي وسير مركم مدح بناء وزير نقضان هل وزير وما أنت وحفيز كيس مدح بناء مجرى ولا جي دولة كحن أما كدمين سن أما بحاجة هي دتك سأو فكرة وأكون شيء مسكح أمبرياك أي دولة نلقى هاي وحلو ما ملا مسكح أمبرياك أما مسكح ما نقاب جبلان والي قانا دقولنا دبير كم دركتاليري شبابتي سلك راس كامبوني كدعبي وان شيغي مالتي لي وريسناي waxay raasbooni ka war waxay iri ciidan inta la qaaday boholo dabka shiriyahay oo meel looga baxsada lahayd laba dhinacood ka xiga isku rog inta lagu rogay lama dihinayri miya maanta gadaan tagayna ayaan wax ku dhiseynaa waxay la mid tahay waa socon waynaa orodno jubbaland way dhisan tahay
dawladda ay leedahay ugu yaraan 20 kun oo ciidan ay leedahay Jubbaland oo balwad aan lahayn ya ummadda Soomaaliyeed ay og tahay waxtarkooda iyo waxqabadkooda iyo quality ay leeyihiin waxa hadda koor gabadha hees qaad waxa tiri Soomaali baan garanayaa geefano asluubtaan garanayaa naba suuqda gama diidan ciidanka hal u tirsay Jubbaland ilaahan garanaa Jubbaland aan garanaa ciidamadeedna la garanaya dadkeedan garanaa shacabkeedan la garanaya waxay la mid tahay shalaan qasaaranay carwadii anta gaday ummadda Soomaaliyeed inta kabara kacilay lacag 20 milyan inta u gaday aan rees kaambooni ku weerarnay meeshan waxa ka dhacay ceebteed ogeed Soomaali hadda waa loo sheekaystaa aniga kay maal dhow ka imaade ummadda Soomaali ciidankeeda saabu u liitay leeyahay inta kay hadhees awal waxa waa lagu seexin jiray waa wax hadda ma arkaan dad ciidan hadda dad ilhaanada ay Soomaali u geysteen nimankan hadda jooga ilhaanada Soomaali u geysteen laga soo kaban doonan Soomaali way sumcad dileen way dhaqaale tireen waa maxay qabki Soomaali baabi'iyeen dad nabadii ay baabi'iyeen war dad maalin Ilaahay ka fikiraya soo waaga bari hebel way xamanaya yaa ku sheeg hebel war hebel san yeelna ku fikiraya waa ummadda la yaab leh dalka wax lagu aaminaa waxaan dhihi lahaa marka ummadda Soomaaliyeed dalkan waxaan ku soo gowgeynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan dalkan iyo dadkan badbaado u baahan yihiin dalka badbaado rabaa cid lagu haleynaya cidna uma qodno cidna uma maqla ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto guntiga dhiisha asaga dhigta ha u diyaar garoo dalka inay ka badbaadiyaan dadkan maskaxda umbaryaakada wato umbaryaaka waxa la dhahaa qofka maskaxda cabsan marka waxay cabeen qamriga siyaasadda oo waalidahay ay cabsi yihiin dad maskax caadi wataba ma aha dadkan aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa mudane xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan oo iiga warramay xaaladda siyaasadeed iyo tan maamulka Jubbaland ee xildhibaanku uu ku matalo golaha shacabka inta aan waraysi mid kan lamida ku kulmi doono aniga iyo xildhibaanka iyo bahda farsamada waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh